ولا شيء أبايو gabadhii dhiblaani la dhalatay gabdhihii dhiblaani la dhashay abaayayaal ilaahay horta idin karaameeyo halkaas ay saarantiin meel ka sareysa ma jirto waxa ilaahay dartiisa idin kaga codsanaa oo min qalbiyan oo qalbigayga aan ka hadlaayo ilaahayna ila og yahay waxa kaliya gurigayga ku shaqeystaa cidna ma dhaco cidna ma xoogo cidna ma laqdabay alxamdulillah kaliya waxaan ka codsanaa adina waxba ka dhibime gabar walaashaada oo horumarkeeda ku dhiirigelisay hooyo ilmaheeda korsanayso oo hooyo inaad tiraahdo keep going waxba ka dhibime abaayo aniba gabdhaha walaalahayga keep going aan dhahaa mid walbo ganacsi nooc rabta gado hadawga hore maadleega u saara oo si sheekare waxa adina ka codsanaa walaashay qaali codkayga haduu ku soo gaaro oo ku soo gaari doona insha Allah walaashay dhiblaani la dhalatay fiis laana ahayso gurigayga iskaga shaqeysta macnaha marka muhiim ah in banaanka ku shaqeysto kira bixiyo inaan awoodin aan dhici karto hooyo sideedoo kala waxa jiraan kirooyinka aan awoodin laakiin anaga ilmoolin sinadana gurigeena inaan ku shaqeysana noo dhaanto kaliya ma ii sameey kartaa ma igu saacidi kartaa walaashaada ahay gabar walaashaada gabar Soomaaliyeed sidaadoo kala asagaaga ahay hooyo Soomaaliyeed ahay bas ma igu saacidi kartaa inaan muxuu ahay ay sheer gareyso ma igu saacidi kartaa inaa koblinkiga 10 mar ii taabato ma igu saacidi kartaa inaa adreeska 10 mar ii taabato adoo raali abaayo wallahi billahi qalbiga ka hadlaa fiis laana aheeso adinka meel sare gaarsi kar ilaahay ka suko gabar shaqaysanaysa isku filan oo mataqaana nafteeda yani mas'uuliyadeeda qaaday marka arko waa ku farxaan faanta wallahi I'm so proud of you guys dumarka dunida ugu quruxda badan ugu akhlaaqda wanaagsan ugu toosan ugu baarisanaatiin faanta gabdhaha Soomaaliyeed baariyaal kaliya waxay u baahan in la fahmo hadii la fahmo dabeecadooda rasmiga bis hadii la fahmo gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha ugu guurka markii la dhaho ugu wanaagsan mataqaana in guur la wadaago nolol la wadaago waa wada naxariis waa wada jacayl waa wada ixtiraam waa wada mataqaana maxaa la ii sheeg يعني وا support في عم بيلين فانت أدك وسبورتين غير سوماليات لا غورستيد هرمري كو غارسينسا كحال لا غولست كيسيال باتين barkasta waa ordi kartaa adoo ordaysidna waa ku fikirtaa hadaa kuftana waa kici kartaa horta taas inaan niyad gelisaan ku ilaahay la sheekaysta qolka adiga waa seexan kartaa soo ma habeenku waa bixay qolkaaga marka tagtid waa seexane telefoonka inta aad qabsanin laba rakac salaatul haaja la dugtaa haday dhibaato ku hayso haddaan nimcaysantahay laba rakac salaat shukriya la dugtaa haddaad faarax balansantihiin guurna laba rakac salaatu istiqaara la dugtaa haddaad shaqo u baahan tahayna laba rakac salaatul haaja ama istiqaara la dugtaa ilaahu haday qeyr ii tahayna ii xij haday shar ii tahayna idaafi way marka heshid haddaad laadahayna ilaahu rabbi raxmaan oo tala adaan ku saartay isii shaqadaas markii aad ilaahay la sheekaysato wax badan boqolkiiba boqol way ku hagaagayaan waalidka waa loo tagaas wax kasta waxa la yiraahdaa aabi hooyo ii duceey ducadeen waxa aaminsanahay dhagax xataa doo iga hormaadin iga bixi ee burburin karto shukaansigan oo sanadkan jiran iska ilaaliyo gabdho yar yar aan aad ugu jeedaa mumkin wana waan gooynaay kuwana waxa safkan isku la jirnay jaamacayaashan wada shaatiga wato ma wada wanaagsanay ogaada gabdhayga quruxda badan ilaahay ha lagu xirnaa shanta salaad dad ilaaliso sharaftaadana ilaaliso you can keep going every day is new day abay waxaan ku leeyahay jaaniskaada ka faa'iideyso wajigaada quruxda badan hallo minina salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inayo darta xalay anigoon xanuun qabin hadba xad isku rogayo ku xamaartay gogoshe jacaylkuna xisaabiyo xudud lagu qiyaasiyo jacaylkuna xisaabiyo xudud lagu qiyaasiyo ma yaqaan xishoodkay uu igu xad dhaafe xubnaha albeerka